liibaan mustafa xasan adigu ku soo dhawaanay telefishinka Universal ugu horeyn waxaad ka warbixisaa safarkaadii ku aadanaa dalkan Mareykanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ummadda Soomaaliyeed meel kastoo iga daawanaysiin waan salaamayaa gaar ahaan deeq wariyaheenna maan salaamayaa safarkaygan aan ku imid dalkan Mareykanka waa safar caafimadeed buu ahaa marka ugu horeeya marka labaad waa safar aan dadka ugu mahadnaqi doono haddii eeba idhaahdo waxaan soo gaadhay magaaladan Madison ee gobolka Wisconsin oo xaal caafimadeedkaygu uu ka socday oo maantana igu dhamaaday oo sanadaas soo socdan uu ka socon doono haddii eeba idmo liibaan sidaad ogtahay Soomaalida inta badan way ka warqabtaa wixii dhacay dalkani marka maadaama caafimaadkaada u imaaday maxaa kuu suuragalay maanta alxamdulillah waxa ii suura galay in aan okiyaale lee xidho amba waxa la yiraahdo muraayad in halkan dusha sare kamarad ku wadata sida videoga aad ku daawan doontiin aad arkaysiin oo carabka wax lagu arki doono oo technology ee wadanada horumaray ee gaadheen oo carabka wax lagu arki doono inta ay indhihi kale ay soo noqon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo muuqaalka marka adigu waa tijaabisay nin waxaad ahayd awl indhihiisa ay caadi ahaayeen wax arki jiray balada maxaad arkaysaa markii aad okiyaashaas kale aad xirato dadka ma dareemaysaa bal dadka kale ee Soomaaliyeed kuwa indhaha leh iyo kuwa indha la'aantaba bal sharaxaad yar ka bixi okiyaashani maxay ku soo kordhisay noloshaada alxamdulillah horta marka hore waan indha qabay alxamdulillah ana qadar baa dhaco maaragtay waan indha beelay oo mugdan ku jiray Ilaahay mugdan ma galiye waxa weeyaan in qalabkan cusub ee lee xidhay aad halkan videoga aad ka daawanaysiin waxa weeyaan waa qalab waxa weeyaan moogtahay in qofku uu carabkiisa uu wax ku arki doono carabka wuxuu ku arkayo maskaxda u tabinayaa oo hab kale iyo wax arki doona aad iyo aad bay nolosheeda aniga kow gaar ahaan liibaan ay wax igu soo kordhisay ummad kasto Soomaaliyeed iyo ummad kasto islaanana way anfacaysaa baan leeyahay moogtahay qof kasta oo madowga ku jira oo yaan leeyahay aad iyo aad bay u anfacaysaa hadduu xanuun indhaha kaga dhacay hadday bambaana la qaraxday iyo haddii waxyaalo kale ay kaga dhaceen waxa leeyahay munaafacaad weyn iyo u leedahay marka okiyaalaha la gashado inta qof ee ku hor joogto waad dareemaysaa waad arkaysaa in halkii ka xigana dareemaysaa koob iyo hadduu ku ag yaallo falaasad shaaha waxaasoo dhan waad ku arkaysaa socodka macal xataa waad ku soconaysaa sida aad videoga uga daawanaysiin socodkiina waa lagu socdaa marka waxaad leedahay markaad suulida rabto oo kale ama aad meel aadaysid ama aad jidka aad soconaysid waxaad noqonaysaa qof isku filan oo keligii socda qof aad iyo aad isku filan oo keligii socda baad noqonaysaa inkastoo aad limid haanayn kii indha qabay ee ordayay adigu wax baad ka gaabini laakiin waad soconi waxaad ka bixi in bilaadanka maaragtay qof qacanta ku qabta iyo amba aad guri aad ku dhex jirtid intaad aad indha laadihid oo dhan taasaad ka maarsamaysaa waad soconaysaa keligaa baad socon ayarna waad u socon si qoyara baad u soconaysaa laakiin arinta kale ah inaad filmaanta fiirsato kale amba TV-yada kale aad fiirsato kale weli taas lama gaarin inaad filmaantii fiirisay weli taas lama gaadhin laakiin way soo socotaa sanadaha soo socda imikadanba 2 bilood kadib mid kameradan mid ka daran ayaa soo baxayso ka sii haboon oo ka sii fiican aan u jeedaa 2 bilood kadib haddana sanadaha soo socda waxa soo bixi doona mid aad ku daawan doonto videoga sidoo qofka kaleba ugu daawado maanta oo laakiin horumar aad iyo aad la gaadhay on aalada internetka sidaad adigu isticmaashid wariye deeq anaguna kugula isticmaalayo haddii aan si xawaara aan u dheereeninba waxaa kaloo noo sheegtay in qalabkani hadda adiga aad tijaabisay dad badan waxay isweydiin karaan marka qof kasta oo aan maanta aan waxba arkaynin wuu galan karaa oo samaysan karaa marka qiimaha ku kacaysa ilaa intee la agtay والله waxaan ku leeyahay horta qalabkan indhahoogi macana uma bedelayaan laakiin waa ku meel gaar qalab ku meel gaar horumar haddana sida ugu socda waxa weeyaan in lacag dhan waxa ku fadhidaa marka hore 10,000 baad bishii dadba discount ba laga bilaabay in la waxeeyo $5,000 bay imatay qalabkan qiimihiisu laga yaabaa inay si dhimaana haddii ay helaan dad cadadkoodu uu badan yahay moogtahay si dhimaana waaye adiga dalkan Mareykanka martay ayaa ku tahay yaa ka caawiyay in lacagtaas intaas la eeg aad bixiso aad maanta ku iibsato qalabkaasi alxamdulillah horta waxaan marka ugu horeeya Ilaahay baan u mahadnaqayaa ummadda islaamka oo dhan noo kiciyay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan wadda kastay ku sugan yihiin gaar ahaan jahliyada qurba joogta ayaan oran karayaa oo boqolkiiba 95 hadaan oranayn waxay ka imatay qurba joogta maanta ummadda Soomaaliyeed ee qurba joogta yaa boqolkiiba 95%
in bixiyey waxaan aan maaragtay aan isku daweeyey iyo waxaan mustaqbalku isku daweyn doonaba iyagaas gargarab iyo gargaarba noo siiyey bal hadda markii aad wadankii aad ka timid dib ugu noqoto ma waxaad leedahay shalay markii aad indhaha aan ka dhacay iyo hadda markaan ku noqdo farqi weyn ayaa u dhexeeya waxaa noqonayaa qof wax qabsan kara oo shaqaysan kara ها waxaan noqon karayaa in ma ka yimid dalkii maanta nin walaalkayo halkan ila jooga maaragtay oo qacanta yaaya baa safarka ila soo galay waxaan leeyahay waxaan ku laamay anoo kaliya socda yaan ku laami doona hadii aaba idmo anoo kaliya socda si qoyar ah u socda si safety ah u socda yaan ku laami doona hadii aaba iraado qalabkan oo ejectable ah oo qalab aad ka saari karaysid waqtiga doontid dibna u xiran karaysid moogtahay laakiin carabka wax lagu xirayo sidee loo saari karaa waxa weeyaan wallahi haddaan faahfaahin saasa dheeraada aan sii bixiyo waxa weeyaan waa sidii nanac qoriga wixii loo odhanayay carabkaad ku muudmuudsanaysaa carabka ayaad ku arkaysaa sawirkii ku hor yaallay kamaradan ayaad soo duubaysaa kamarada markii qofkii ku hor yaallay ee video ka qabato carabkiiba videogu soo tuuraysaa videogina madaxuu u tuuraya qofkii baad arkaysaa wuxuu samaynayo moogtahay maskaxdaad ka cabiraysaa laakiin maadaama sidii nanaciyo kale aad meel ku dheganayn bal ka waran haddii aad liqdo maxaa dhici kara taasi waa halisteed bay leedahay deeqotaa halisteed bay leedahay inkastoo xadhig ay ku xidhan tahay sida mikrofonkaagan oo kale ee xadhig ku xidhan tahay safety badan ay leedahay oona hunguriga waxa ay ku raacaynato aad iyo aad looga maaragtay taxadiray marka waxa qaaliga ah ma kan carabka lagu xirayaa qaaliga ah mise miraayada kan carabka lagu xirayaa qaaliya oo aad iyo aad waayo kaas waxa videogaba kamaradan iyo okyaalahan maaha waa bahalkan carabka يا لأن صوركي هيا ما أنت الحمد لله وحي قاعدين عالمكو إن هرمر بي قاعدين إن ما ركتي عرب كي كسر قادان حدود النوركا بريك أدان نون لاين وحن مقلد دونا لغة هي كسر قادين حدود النوركا وقف اللغة وحكوا أركابة كستوي ما ركتي الدولة ده هنا أدي هرمرين تاسبان لي مكتي وحلا لقما اللي بنو ضد بدنا وحسوا دي كرانيك عن كم هذا قفك دوسن إن دلهين وإنديس إبر أيهين sidee ayay ku suura gashay ookiyaal indhaha lagu xiray haddana carabka wax lagu sii xiray qofka sida wax u arkaya dadka noocaasi ah oo fikradaasi qaba oo aaminsan oo kaliya in indhaha wax lagu arki karo maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegayaa horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay in horta ilaahay baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay abuuritaankan uu marka hore uu bilaadanka uu abuuray iyo maaragtay haddii xubnihiisa kale kamid ah haduu waayo in xublaha kale ay buuxiyaan abuurtaankii ilaahay baa marka hore basaaska marka waxa weeyaan qofkii haduu indhihi beelay waxa laga soo qaadanaya dhigtii amba iligii amba carabtii amba qacmihii xubnihii kale jidhka ayaa buuxinaya oo xubninkii isku tagaya taasa maanta dhacday waxa dhacday mar kale oo bishii soo dhaaftay maaragtay bishii shanaad dhaweyd ina ilig wax laga arko baa dhacday oo dalka maaragtay ka dhacday Yurubta ka dhacday oo anakuna aan telefoon kula hadlay oo kala qayb galay oo la joogay ma ilig baa wax laga arkay marka waxa leeyahay abuurtaanka ilaahay marka hore saaska in xubin ay buuxiso laakiin adii liban ahaan intii meeshan aadan imaan qalabkan aad tijaabin maskaxiyan ma kugu adkeed arintaas inaad aaminto maskaxiyan way ugu adkeed run sida maanta dad kasto ay daawanaya u oranayaan in waxan malaha ma dhici karayo ee u leeyihiin bay anagana igu adkeed laakiin inkastoo aan aaminsanaa inay dadkan dawladahan ay inta anagu wax kale aan ku mashquulsanahay in iyagu wax muhiimad leh oo dadka munaafacaad u leh inay ku mashquuleen ay waxana ay noqon karaysa wax suurtagal ah inta Soomaalidu ay qabyaalad yanka waa reer ayo weeyaan reer abtigii waa ayo ay ku mashquuleen dadkan waxa ku mashquuleen dadkan dhibaataysan dib kasto haysta si uga saari lahayn iyo ku mashquuleen dadka kulli wadanka Mareykanka maadaama aad joogtay oo dhaqaatiirta ay ku sameeyeen alaabtan dhaqaatiirta sameeyay marka halkay ka soo jeedaan ma weydiis dhakhtarkan imika aniga gaar ahaan igu sameeyay wuxuu ka soo jeedaa dalka Shiinaha iyo ka soo jeeda oo halkaas uu ka yimid moogtahay in waa Mareykan iyo Shiino waxa maanta horumarkan tan aan sheegay in maanta aan sito sameeyay waxa la yahay halkaas ka soo jeedaan moogtahay dadka horumarka gaadhay dad badan ay jira Liban oo Soomaali ah oo aan araga haysan maanta waxba aan arkeenin qaarkoodna way awoodi karaan in $5 iska bixiyaan qaasatan kuwa ku nool Mareykanka oo kale dadkaas maxaa kula talaleed والله كل تلا يا هرت إتكستو أودا قربها كنا إندلا inay maaragtay qalabkan ay dheelsan ay qaataan waayo marka qofku indhalay yahay dadka qaar baa iska dhaadhiciya bila mustaqbal baa tahay bila maxay baa tahay waxa oranaya qalabkan aad buu fiican yahay
aan meel ku qaadno شعاع ما قوبت اوكي حدنا هذا اوكي سامعني اوكي dad badan oo Soomaali ayaa jira oo indha la qaarkood wadankan Mareykanka ay ku nool yihiin awoodi karna $5 iska bixiyaan maxaa kula tan dadkaas wadadkii awoodi karaya waxaan oran karayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee awoodi karaya ee indhala waxaan leeyahay wallahi qalabkan aad iyo aad buu nigu fiican yahay qaata cidii awoodi karayna waxaan leeyahay aan badalal Kenya kaga imanay ummadda Soomaaliyeed ah waxaan leenahay dadkii maaragtay dadkeenan baa u kacayna annaka ballan ka qaadayna inaan maaragtay horumarka maanta aan gaadhnay iyaga walaalaheena aan gaarsiino moogtay taasaan ka ballan qaadayna ma ka fikirtay inaad noqoto qof ambassador amba danjira ah oo dadka indhaha la oo Soomaaliya jooga ama Djibouti jooga walaalaha inaad mashruucan aad gaarsiiso oo iyaguna aad wacyi geliso oo aad ummadda kale aad wax u weydiiso si qof kasta oo noqdo qof isku kalsoon oo hadda sida adigoo kala socon kara oo wax qabsan kara oo wareegi kara oo isaga isku filnada horta markii hore indhaha laga soo tuuray malaha waxa yiri Ilaahay baa maaragtay sabab u dhigay in kaaga dhigay in dadka indhaha laga soo waramo iyo Ilaahay malaha adiga sabab kaaga dhigo kugu diray waxa weeyaan maanta waxaan yidhina markii indhihi aan beelayna maanta aan technology-gan horumarka aan gaadhina waxa igu weyn aad iyo aad deeqow inaan maaragtay dalal Kenya tago meel kasta ummad Soomaaliyeed ay ku nooshahay maaragtay dal kasta ku nooshahay inaan ka gargaaro inaan tababar ka siiyo in aad iyo aad maaragtay dadkii ay nicmadan aan qabo inaan qaybiyo taas maanta igu waajibta faradka bay saaran ugu dambeyntii marka barnaamijkan yaa ka taageeraday barnaamijkan Brainboard-ka qalabkan xiranayo ummadda Soomaaliyeed baa iga taageeray mahadnaq aan la koobi karin baan u jeedinayaa waxaan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed ee sidaas caalamkoo dhan ka hadashay heeliyo waxaan deeqo horta igu weyn oo marnaba aan iloobi karin on jaclaaday inaad ila wadaagtid waligay waxaan anigu ku aqleystay Soomaaliya oo lacag loo diro oo hadii Djibouti la joogo iyo hadii Ethiopia la joogo iyo hadii Qurbaan la joogo Soomaaliya lacag loo diro qof oo $100 $200 lagu gargaarayo laakiin waxa dhacday in Soomaaliya lacag laga soo diro sidii qof Qurbaan joogo buka loogu gargaaro islaan baa kamid ah lacag noo soo dirtay oo Kismaayo joogtay oo taasa dhacday ilaahayna waxa leeyahay nicmadaas iyo kalsoonida ay dadku ay gaadheen iyo midnaanshaha ay gaadheen ilaahay taasa nagu wada leeyahay waxaana ii cadaatay dadkoo dhan haddii isku tagaan Soomaalidoo dhan haddii isku tagaan inay wax noqon karayaan ee meel la gaari karayaan taasa ii cad aniga maanta waxaan mar kale aan maaragtay mahadnaq u celinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool qurba joog haddii Canada tahay haddii Mareykan tahay haddii Djibouti tahay haddii Ingiriiska tahay Belgiumka anigoo ilooben oo qoladii ugu horeeyay gargaarka ay fidisay ee tahay iyaga joogtay waxaan kaloo ilooben on tacsiir tiraanyale u muujinaya ummad kamid ahayd dadkii gargaaro maanta maaragtay dhintay gaar ahaan maaragtay in ilma iftiin oo ka leeyahay maaragtay samari ibaan walaalayaal